بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا ليال الله سبحانه وتعالى يوم هذا الأسكاله عليه عافمات كنسي دينتي إسلام كان نود دهري مسلمين النقد أيام هذا الأسكاله. waxaan rabaa inaan halkan idinkugu soo gudbiyo dhacdo cajiib ah oo kolley anigu qudheyda isaameysay idinkuna sidaas la mid ah ayaan filayaa inay idin saameyn doonto. dhacdada waxay leedahay ku bilaabanaysaa fataatun macnaa tafattatu jismi amaama ahliya, gabadh jirkeeda uu kala go'ayo, hilibkeeda uu kala dadaadanayo bacda mowtiha markay dhimato kadib. waxaa ka sheekeynaysa dhacdadani gabadhii meydka dhaqaysay. sidaa daraaddeed dadka meydka dhaqa haddaad la sheekeysatid xog fara badan ayay kuu sheegayaan. waxay leedahay waxaa laygu yiri gabar baa noo taal meyd walaalay kaala noo dhaq. dabeetana waan soo raacay ayay leedahay xaggii iyo waxaan soo aadnay gurigii meytada ay ku jirtay. dabeetana waxay igu dhaheen gal guri albaabka intay ii furan waxay dhaheen gal. markaan galay falama marka macnaha waxay leedahay markaan albaabkii ay fureen أي دهين قال عندما دخلت الغرفة التي فيها الميت فكنت أول من دخل فقام أهل البيت بإغلاق باب غرفة وفرس. وحي دهين البابكي قال قري قال أي دهين البابكي إيقا فرين مركان قالين كر أي إيقا حرين أي فرين ويقاتين. سبحان الله. وعددك لما لقوا أو إن وحلو دقي محي توي ماشي لوغي ماذا يا waa dadkii dhamaalkaale wax noo dhaqdhahay ayaa falkan sameynaya. guriga ayay kor iiga xireen ayay leedahay furihiina way qaateen. albaabka ayaan qaraacay iiga fura albaabka. waxaa maxay tahay sharqool miyaa maxay tahay gabadhiina idin dhaqaya asxaana idin sameynaya waa maxay dabdaradan iiga fura albaabka. walaakinaa lam tasma laakiin albaabka wax ka fur malaha wax ka furay albaabka malaha gabadha walaalayaal. ilaa horta albaabka markii laga furay horta hadalkaada in la maqal sama banaanka haddii qof uusan joogin si laga furo. dadkii mar hore intay guriga xireen ay furihii la tageen adigu un baa qaylinay sooma kale waa ma qaylinay. waxay leedahay washacartu bilkhawf cabsi ayaan dareemay leedahay. waxaan sameeyay ma aqaani gurigii koraa liigu xiray meelaan aadama laha. ثم استعنت بالله وبدأت بغسل الميت أي الذي قولنا إلهي أيان مجنجلي وحان الجوان سدي إن الميت كدق. وكان كل ما أحتاج معدد وفرس وحلاله وحكستا وميت لو دقي لها وليسي دياري وفرس وحكستا وميت لن ميتك وحيال بقى لو دقي سما قبكي على الربا صابونتي على الربا بيي على الربا كرفنتي على الربا وحي لو ادقنا على الربا وحي دن وحي لهي أحبتي في الله وليسي دياري والله وتر قلي مركو راه ولا وتر قلي. waxay leedahay meel aan u carar hadda ma laha albaabkii koraa looga xiray. waxaan is-ilaahay leedahay gabadha inay maqtuulo tahay. gabadhan meydka ah in maqtuulo ay tahay oo la dilay kadibna dembigeeda aniga kor liiga saar raba saasaan u qaatay. aad baan u cabsiday leedahay marka laakiin ilaahay ayaa nafteeda dejiyey. إلهي سبحانه وتعالى أيان ويدي سيلة إنه نفتي دجية dabeetana waxaan bilaabay inaan dhaqo.
هلاذا فلما كشفت عن وجه المرأة فإذا هو شديد السواد كأنما هو قطعة فحم. يا الله. وهلاذا مركان بالله بقبدي إن لقى وجه جدي مرضي عن وجهي كقادي وجه جدي وهو مدوي يا قبد سيد الحشة أو كلا وجه جدي لا الحشة مكورية الحلا دوحة كمدوي مياجر والحشة أو كلا فهم والسيد الحشة أو كلا وجه جدي لا قبنا الحلوة الشيخ. وشعرته بالخوف مرة أخرى مركل يعني عبس دري ميلاد سعر. طيب ماشي أنكو صلاة بتاعي مركل ماشي الباب كأها أيام كو صلاة بتاعي شيء قال مركل روح عيد اسكدق أم بإيه هاد أرنك على صباح لي وجمدو لما تأخر. طيب waxaan ku soo laabtay leedahay meeshii ayaan ku soo laabtay albaabkii ahaa oo marka hore aan ka duulay. ثم استعنت بالله مرة أخرى هذا إلهي سبحانه وتعالى أيان كلمة ويدستي إنه نفتي دجية إلهي أيان نفتي دجية leedahay waxaan bilaabay marka inaan dhaqitaankii aan sii waday leedahay. فلما بدأت لغسل جسمي فإذا اللحم يتفتت في يدي كأنه خط وفرس يعني امتحان بامتحان كقدم بيا أيا كسي أدك وحيل هذا هاي وجهك مدوق ولا قصة تجي جير كذا كلا مركان بالله إن بيه وحساب مودي مركان بالله لا ده أنا قبلنا جير كذا بوجوجوي قعنتي أي هيلب كذا سرعة يا لاد محاول لقاب حتى قعنتي ماشي قعنتي تعبته قعنتي ماشي تعبته هيلب كي أي على سرقة سبحان الله مصيبة أرن عجيب قبل قيس نمدد عن ليابي وحي leedahay هذا ور ميال انت لو عرري وحي إلهي ويديسين وكو المية إلهي أجر كراسنيسا إلهي درتيس أياد دقيسا إن المرك إلهي درتيس كو سفرت ولا لما هران ويان dabeetana waxay samaysay gabadhii ayad ahayd horiyaan u dhaqay horiyaan maxay ta u boobsiyey horiyaan ugu farxashtay waa kafanay dhankaa iyo waxaan soo aaday leedahay anigoo argagaxsan oo lugtii qaadi la ayaan waxaan soo aaday leedahay dhinacay albaabkii ayaan qaraacay cabbaar markaan qaraacay ayaa liiga furay markaas waxay dhaheen gabadha ma dhaqday waxaan dhahay waa idin dhaqay gabadhiin ordaha soo fiirsada kadibna hadal kale umaanan jawaabin waa cararay ayay leedahay saan u orday gurigayga ayaan tagay 3 beri iyo 3 habeen gurigayga ayaan fadhiyay oon intaas aan ooynayay ayay leedahay waa ooynayay 3 beri iyo 3 maalmood ayaan guriga ku jiray aan banaanba u soo bixinay leedahay inta aan ooynayay أي ليلة وبعد 3 أيام 6 بركدب أي وحيلة اتصلت للعلماء وحملنا إلى أنت كنا ما تمينا 6 بركدب أيام وحن لحريرين العلماء سيان باشا وأرضنا أو شيء ومركي حوو أي ميرستي ومركان أرجعي حفارها بدنا وكير دقي ويان. طيب waxay leedahay nin sheekh ah ayaan marka aan u sheegay waxay tiri sheekhow gabadhan wejigeeda wuu madowaa waxay tiri gabar aad igu yar inaan dhaqay gabadhina markaan bilaabo inaan dhaqo wejigeeda wuu madowaa jirkeeda kalena markaan bilaabo inaan dhaqana hilibkeedana wuu go'ay
hilibka wuu kala dadaadin sheekh wax la arki maaha waa cajiib waa arrin lala yaabo run ahaantii axibata fillah waa arrin waana ah oo lagu cibro qaata waa sheegi doonaa waxaa sababay laakiin waa arrin run ahaantii culeyskeeda leh waxay tiri sheekhow bal arrintan ka waran markaasa wuxuu yidhi ama sawaad madowga miya fayadullu calaa annahaa lam takun tusalli wuxuu leeyahay sheekhi madowga ninkan waa culamo moogtahay alculamaau warathati alambiyaa culamada waxay dhaxleen ambiyada iyo rusushii ayay dhaxleen rusushana laa yuriidu dirham walaa diinaar rususha shilin lagama dhaxlin ee cilmi ayaa laga dhaxlay booska ambiyada culamada ay noo joogto maanta sheekhii cilmigiisa ayuu adeegsaday soo maaha wuxuu yidhi anigu kolley ma ogi anigu qofka dhaqimi laakiin arrinta sidaad wax igu sheegtay waxa weeyaan haddaan aan fasira wuxuu yidhi madowga wuxuu ku tusini ayuu yidhi in gabadhan aysan tukan jirin ma tukan jirin sheekh gabadha madowga salaada la-aanta ayaa keentay ayuu yidhi haddaad i weydiisay gabaryahay wa ama tafatatu laxm hilibka kala daadana soo maha fayadullu calaa annahaa lam takun tusalli fayadullu calaa annahaa tatabaraj hilibka kala daadana soo maha wuxuu yidhi hilibkan kala daadanayay isagu wuxuu yidhi gabadhan inay ahayd mutabarija ma xijaabin jirin ayadoo qaawanay socon jirta u fiirsa wuxuu yidhi wejiga madowga wuxuu sheegay salaad la-aan hilibka kala daadanaya wuxuu yidhi gabadhan xijaab la-aanay socon jirtay oo dhar khafiifna ay qaadan jirtay jirkeeda ka dhex muuqda oo shabkeeda banaanka soo dhigaya muuqaalka jirkeeda sawiraya oo dadka ajnabiga ah u sawiraya ilaa dhar waxaa jira see me through allah see me through dhar noocaas oo kala jira macnaha iga dhex arag ayaa dharka waa dhar khariban oo balaayo qabo gabdhaha hadda waaba jecel yihiin markaas see me through haba hadda isku laynaya see me through waa jecel yihiin gabdhaha I don't know ma aqaan waxay u jecel yihiin yacni ilaahay xijaab qaata ayuu leeyahay iyagana see me through ay rabaan qamaar yar iyo masar yar ama juuni yar saad u taqaanaan qofku soo u yaqaan ayaa madax lagu duubani cabaayadin ama diracna waa la xiran gabadh waxay ku leedahay waa maasha allah waa asturan waxa asturan ma walaal waxan runtaan isu sheegna ya ilaahay khayr ha ku aad baan ku jeclaa ilaahay dartiisaan rabaa inuu wax kuu sheeg yacni qof ku jeclaa wax kuu sheeg soo maha waan kaa nixi walaashiyaa tahay waad igu qaaliyaa tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku xifdiyey waxay leedahay wa bacda alcazaa tacsiidi kadib ayaan xaafaddii aaday xaafaddii mataqaanaa gurigii waa gurigii sida xun looga galay gabadhan oo kor looga xiray gurigii aaday gabadhan haddii moogtahay waxay rabtaa wax dadka ay ugu gudbisay rabtaa arrintaanay rabtaa inay ka sala gaarta meeshay ka imaadeen sheekh markay u tagaysa waxaan dhan markay u sameynaysa xaafadda gurigan ay aadaysa waxay rabtaa arrintan salkeeda inay gaarto way soo baxday dabeetana waxay u timid gurigii waxay tiri waraheedhe war maalintii ma is wareysanine say wax u jiraan gabadhiina arrintan say maxaa meesha ka dhacaya maxaa jira maalinka maxaa guriga u xiraysan horta waxay dhaheen horta qofyay waa raali noqo maalinkii guriga waxaan kor kugu xirnay daruuf na haysata ayay ahayd daruufta waa maxay waxay tiri adiga waxaa kaa horeysay 2 gabdhood kale oon keenay oo cararay markay arkeen arrinta adiga hadda aad aragtay oo la argagaxday ayay arkeen dabeetana way carareen
marka aan aragnay inay carareen anaga xataa waa aragnay dheemadowgan waxaan laakiin wax noo dhaqa ayaan raadinaynay ilaan meed iyo qabri lama kala qariyo meed inuu agtaada ku dahmaa meedka waa in qabriga la geeyaa dhaqsi haddii uu xun yahayna shartiisa isdhaafi haddii uu wanaagsan yahayna haddii kheerka meesha sugaya ayaad ka dayanaysaa ya kheer ayaa kusoo ilan qofka markii uu dhintay ama shar ayuu leeyahay ama kheer ayuu leeyahay shar haddii uu leeyahayna inaad agtaada aada isku sii daayso ma ahanba haddii kheer uu leeyahayna kheerkiisa u tideji sidaa weeyaan marka laba gabar ayaa kaa horeysay markaasaan tashanay oo waxaan dhahnay qofkan saddexaad aan keenayna waa inaan guriga kore uga xirnaa markaas sidaas ayaan arrintaas horta aan u sameynay dhehen nagaraan noqo waxay tiri madowga jirka macnaha wejiga gabadhiina wejigeeda wuu madowaa jirkeedana wuu kala daadanaye maxaa waaye gabadhiinan maxay qaban jirtay ayay dhahday markaasaa waxay dhaheen horta gabadheena maysan tukan jirin salaada waa lagu kari waay intay nooleedba war walaalay maad dukatid soo midaan muslimad ahayn war miyaad xisaab ilaahay aysan ku sugaynin war maad dukata inan yahay war maadaa salaadii ugu leh sida haddaba aan dhahnay dad badan maadaa iwaanay adiga maxaad ii sheegaysaa maadaa xisaabinaya birtoole maadaa salaada ku tukanaa soo sidaa ma dhahna sidaa weeyaan waxay maadaa salaadii ugu leh markaan dukanaa xilligan rabaan dukan maadaa salaada ii sheegaya maadaa cilmi maanta ii sheega oo kale ayib waxay kaloo dhaheen xijaabna maba qaadan jirinba ya banaanka markay aadaysa xijaab la-aanay socon jirta jirkeeda waa iska muuqdaa mutabarrijo ayay ahayd gabadhan maadaama gabadhan salaadina aysan dukan jirin jirkeedana ay u qaawanaan jiray ilaahay wuxuu ku abaalmariyey in wejigeedana la madoobay jirkeedana uu gogo-o qaatay muxumadaasna inay ku dhamata ilaahay ayaa sidaas qadaray ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu gabdhaha iyaga noo xifdiyo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala xijaabka uu ku sugo walaashaydan adigaan isoo fiirinaan kula hadlaa aad baan kuu jeclaa oon kuu qadariyaa xijaabka waa gaashaanka xijaabka waa dheemankaada inaad dheeman tahaysaa lagu garanay xijaabku weeyaan ilaahay ha ku barakeeyo xijaabka qaada simitruuga isaga tag ilaahay ha ku barakeeyo waad liibaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag ayuu kuula doonayaa ilaahay siduu wax wanaagu kuula rabo cid kale ka heli maysid ilaahay ayaa ku abuurtay wuu ogsoon yahay waxay ku wanaagsan iyo waxay ku xun gaal xun oo shalay maadaraad adduunya aad ku aragtay inuu ku dhaha xijaabku waa kuleelow keeni fashon ma aha juuni baalkan qamaarkan ka qaata waxay in dhammaa gabadha waa asturaad almar-u gabadha waxaa waaye inay asturnaato weeyaan almar-u sitaaratun yacni gabadha waa inay asturnaataa loo baahan say ku asturnaani waa in jirkeeda oo dhan ay maxay tahay ay qarisaa ay xijaabataa rasuulkana muxuu leeyahy almar-atu cawra gabadha waa cawro ayuu leeyahy jirkeeda dhan waa cawro banaankaas markay socota eeye ayaa banaankaas jooga eeyahaas hilib hadday arkaan meel yaala waa kusoo duudaan soo ma eey adi ma aragta eey banaanka joogo hilib u cuni marka banaanka markaas socotay dad badan aa ku damcay dad badan ayaa ku damcay
طيب اي uma jeedi maxay tahay dad wanaaga dad wanaagsan uma jeedi laakiin waxaan ka wadaa tusaale uma soo qaadanayaa waxaan ka wadaa dad xun xun ayaa banaanaha tuuran oo dhooban oo rabaan inay ku fuduliyaan oo sharaftaada ay ka qaadaan gabar xijaab wadato oo asturan ma damcayaan maxaa yeelay waxay wax qarsadsan wax ka muuqda ma laha laakiin gabadhan ayay rabaan inay mustaqbalkeeda ku ciyaaraan nin kasta ayaa ku damcaya adaana isu keensaday ilaahay khayr ha ku sii xijaabka ku dadaal salaadahana ku dadaal salaada gabdhaha yaga waxaa laga yaabaa jikada inay iska gasha hadda ramadaan aan ku jirnaa bisha ramadaan ayaa noo dhalatay waxaa laga yaabaa gabadhii subaxii ama 5 saac markii la gaaro ama 4 saac say jikada u gasha maqribkii ama cishii inay kasoo baxdaa intaas ay marba ay digsi dabka ay saaraysa iyo mar digsi ay dabka ka dejinaysa iyo mar kirli ay dabka saaraysa iyo mar kirli dabka ka dejinaysa weeyaan war laguma keenin meesha inaad cunto jika inaad ku jirtid jikada ku jiro waqti laakiin samaysa mar aad cibaadaysanaysa iyo mar reerka aad wax u samaynaysa ha ahaad laakiin meel lagu soo jarmaganaysa adigoo jikada ku jiro oo cuntadaas karna haddii malkumuudka uu ku yimaado ka hor ay geerida ay kugu yimaado cuntaan karinay yaa kaa yeelay walaalayaal cuntaan karinay yaa kaa yeelay jikaan ku juri yaa kaa yeelay cid kaa yeelays ma laha ilaahay uu ku abuurto waqti sii salaadaha markii la gaaro kullu shayin bacda salaash wax walbaba salaada kadib baa la sameeyaa salaada hadday soo gasha jooji sambuuska aduweysa jooji canjeerada aduweysa afurka orod soo duko salaada waa 10 daqiiqa mis 15 daqiiqa weeyaan wax weyn miya waxaana saacadooyin ayay kaaga baahan yihiin salaadana waxay waa fududiin wax walba waa 15 daqiiqa waa soo noqonaysa dhib malaha jooji soo duko duhur jooji soo duko casar jooji soo duko maqrib maxaa dhib u jira shaqadaada wada wixii isku ilaahay ha ku barakay khayr fara badan allah ku sii khayr fara badan allah ku sii inan yahay camal ayaa loo baahan yahay aakhira markii la tago dadka qaatimada xun ku dhimanay sida hadda gabadha oo kaleeta waxaa weeyaan waa salaad la'aanta inuu wejigaas noqdo marda subxaan allah ma rabtid xijaab la'aan inaad socoto miyaa rabtaa oo hadhow jirkaada usaa noqdo subxaan allah maalikul qudus waa maya ragga ajaanibta ka xijaaba maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku leh quruxdaada lama banaanka lama soo dhigo quruxda la muujisay waxaas ma jiraan quruxda ilaahay subxaanahu watacaala inuu maxaa yeelay balaayada kaa raaci doonta ayuu ilaahay ogi subxaanahu watacaala marka allah ku barakeeyo khayr fara badan allah ku siiya asxaabta qiimaha badan iyo sharafta badan fiidiyogan walaalihiina gaarsiiya waa run ahaantii aniga xataa aad bay ii saameysay markii u horeysa aan akrinay bal hala faafiye subscribe hala saara channelka Idris Maxamuud waxyaalo badan oo qiimo badan ayaan idin soo wadaa waxyaalo badan oo aad ka faa'iidi doontiin ayaan idin soo wadaa hadduu ilaahay nolosha noo daysta channelka hala faafiye oo share ha lagu sameeyo hana maxay ay tahay subscribe ha lagu sameeyo meesha gaduudka ah subscribe saar meesha gaduudka ah hala madooyo meeshas gaduudka ah subscribe aad ku dhufanaysaa waa gacantuna bas suurka saaraysaa touch weeyaan dabeetana all ayaad ka dooranaysaa gambaleelka furo like-tana saara walaalihiina la wadaaga allah idin barakeeyo aad baan idin jeclahay intaan video kale aan kula kulmayna intaas ayaan kusoo afmeerayaa hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi